shirkan wuxuu daaran yahay sidii magaaladu nabadgeliyo aynu ugu helneen ugu noolaanahay haddii bahashu faraha ka baxdo oo ay lunto qofna mas'uul noqon maayo qofna qurux badnaan maayo dad qaxayo bay hoofabeen noqoneen ilaahay naga hayo oo qorigu hadduu dibadda u soo baxo qarqarka ninka fuulo wixii la sugaa waa inuu xabadi ka dhacdo xabadi hadday dhacdona fadhiyi mayno marka waxa nala suuragel ahaan weeyay haddaan nahay golaha deegaanka in yar oo qeyr mas'uul oo khamri cabsani maatadana qaxiyo annagana naqaxiyo magaaladuna saa ku baabado loo kayaaco marka waxaan nidhi intii aan la qaxin oo xabadu qoriga ka bixin waa qoriga sayna isaga xareynaa oo meesha sugu celina waxay noqoyay maanta dawlad xereynaysa u xog sheeganaysa ma jirto oo waynu ognahay maamulkii dawladeed iyo laamihii amniga awoodda ay leeyihiin ciidan inoo joogo waynu ognahay ilaahay nagama keenee hadday saacadda ka bilaabato siday u dhici jirtay oo kale dib ugu noqoto cid imanaysa iyo gaari soo guuxaya wallaynaan jiro isaaq inoo soo gurmanayaana ma jiro Somaliland ciidan ka socdo inoo imanayaana ma jiro waxa lagu qaban karayaa guriga laga soo qaadayo hooyada joogto oo tiraado hooyo qoriga dhig kow inanta walaasha ay joogto tiraado walaal qoriga dhig aabaha oo yiraahdo war qoriga ii dhig maamulka oo yiraahdo war qoriga dhig hebelow runtii waa ayaan daro ummaddu belaayada waxa la yaada daamo la qabtay leeda ee daba la qabtay male runtii inteenani markaynu isku fikirnahay oo isku qofnahay oo aynu danta guud wada arkayno oo aynu leenahay halkaas wax ka qaloocan yihiin ee maanta halka aynu gufayno inta kale reer cilaf weyn oo inagoo kale waxaan qabaa xaalad kasta oo qalafsan oo degmadani ku jirto inteena golaha fadhida iyo inta inaga maqan ee inama macaa ee inala fikira ee xaaladda jirta inagala danqanaysa inuu dhamaan karo haddayna ka qaban oo ninka noocaas iska qaban oo ka dhibta wada waynu ognahay xogaal baynu naayo suuragal ma aha inaynu aan xukuma hayna aynaan meel uga soo wada jeesan wallahi waxaan ogahay in halkeedu ku noqonayso oo aynu sideeni labada daraf midkeen badaraf isa soo taagay maanta qof reer cilafeen oo wuxuu qaba inuu qaxo ama inuu dhibaato cilafeen ka sameeyaa miyay jirtaa inagu dhex jirtaa intiina waxaan u wada baahanahay dhammaanteen dumarka iyo ragaba inaynu wax si wada jira wax u wada qabno marka waxaan baahanahay islaanta hooyada ay guriga joogta iyo odayga guriga jooga iyo inanka guriga jooga iyo inanta guriga joogtaaba inay aqal saliim oo cilafin maanta kaga tariso dhammaanteen inagoo aan kala lahayn qabiil isku meel baan ku wada fadhinaa hadaynu nahay dhammaan reer cilafin meel lama kala lihin meesheen wada qaxayno meel baan wada qaxaynaa meesheen wada joogayno meel wada joogaynaa ilaa inta qiyaamuhu dhacayo inagoo isku wada dhan waxaan rabnaa in wax laga qabto oo dhinac looga soo wajeesto qofka fidnoolaha ah runtii mahadcelinta haweenweynaha dhammaan ay ka soo qayb galeen oo aan lahayn haweenka dhammaan uroodii ii wada muuqda dhammaantood waayeelkiiyoodii cuqaashi ah waxgaradkii aqoon-yahankii kale qurbo joog inooga yimi laftigooda dibadda oo reer cilifeyna ah oon yar xusaneeyo kulle hadalkuna leh dhammaantood waxay u joogaan oo maanta markhaati ka noqonayaan inaan maamulku u yaraysan hadal wixii dhacaya daba dhacaya laakiin inaan la oran doonin maamulkii markaa joogay way nasiib xumaayeen waa la oranayaa laakiin way taab gaabnaayeen waxba waa sheegi waayeen oo ummaddii bay nabadgelyo kala hadli waayeen waxaan ilaahay marag gasanayaa inayna oran doonin waxaanu idin leenahay nabadgelyada ka shaqeeya oo nabadgelyada ilaaliya oo aynu ka wada shaqayno oo haddaydaan idinku nagala shaqayn oo aydan ka xun noo sheegin oo aydan nala wadin ma soconayso far kaliya fool ma dhaqdiya Soomaali tiraahdaye inoo socon mayso meel wacan bay inala maraysi wax kasta ha dhaceene meel wacan bay maraysi ka soo kabasho leh waxa lagu jiro horumar waxa lagu jiro qurxin waxa lagu jiro si dardargelin waxaan la qabaa haddii islaamku soo sheegayso inanku soo sheegayo qofka khamriilaha ah oo ka xiga qofka ugu horeeya qabanaya intaan hadduu yimaado ciday doonaan ha ahaadeen waa kaalay ninkan khamriilaha ee qoyskayga ama tolkaaba ama
ama deegaanka ah ila qabta oo de sadaqada gurigaaga laga bilaabayo ka wardiga u dhaho ila qabta anigu waxaan qabaa inaan cidla diiday wixii nabadgelyada xumaynaya inaynu ka wada hadalno inagoo heer cilafweyna mayna sugno saddex qodob baan ugu muhiimsan mid waxa weeye qorigaa dibadda u soo baxay haddii qori la arko nabadgelyo darana waa la arkay sidii waayeelku ka wada dhawaajiyey iyo cid kastoo halkan ka hadashay waxaynu wada ballan qaadnay haddaynu heer cilafweyna inaynu qorigaas ka xirayn war ficilkii aynu ku darabaynu leeno hadal yaana inaga noqon midka labaadna waa khamriga inanka keenaana waa inankeenii gaariga soo qaadaana waa gaarigeenii ka cabaana waa inankeenii intaba aynu qabano oo laamaha dawladda iyo nabadgelyada iyo ciidanka booliska aynu gacan ka siino midka saddexeeya waxa weeyaan warka propaganda ah ee habeenkii la isu gudinayo ee magaalada kala qaxinayana meesha laga saaro cilafweyn waa tiin dhaxaadka nabadgelyada waanu uga mahad celinaynaa haddaanu maamulka sidaa ay isugu duuban yihiin haddaynu ragoo isugu duubnaan lahayna waxa laala cilifin ka xumaan lama jiro laakiinse waxaan leeyahay war weecsanaanta iyo qalooc xagga haweenka ma yaalla ee xagga raggu yaalla aynu toosin cilifweyn ahaan hadday nabadgelyadu dhadhana ka tahay waa inaynu ahaano kuwo isku duuban oo aan kala qaybsanaan ilaa maanta midhablaya la tagay maanta midhablaya la tagay inagoon qabiil iyo oday iyo inan iyo inaan kala lahayn hooyooyin baanu maqaaxyaan dhibaatada ma hayo carruurahay waxaan ku kordhay maqaaxyo ku taasheegaya anigu carruurtay maqaaxa koriya dhibaatada taab ma hayo walaan qaadana iska badaa waayo de kana waa ka dhashay xaala waa maxaan baqaada kana wax iga dhagaysan maayo kaasi wax iga dhagaysan maaye hadday wax iga dhagaysanayaan waxaan leeyahay war intaad ilaahay ka baqdaan deegaankan ceelafweyn dad ku nool intuu ilaahay ka baqdo iyo dumar war gacmahaan isqabsano oo nabad baa wax lagu cunayo oo nabad baa lagu shaqaysanaya oo nabad baa lagu qurux badan yahay anigiisa u sheegno oo maamulka u soo gudbino ha ahaada inaga isu askara maanta inaga isu waayeela inaga nabadana ilaga raba inaynu adkaysano ilaahayna subxaanahu wa tacaala hayno odayada mid baa leeyahay waa run odayadu way daareen xumaantii dhacdee kasta ee degmada ka dhacdana iyagaa la saaraa sababtoo ah dee ilaahay marka hore uga dhigay waayeel iyo madax ayaa marka hore mahad iskale laakiinse waxay ahayd inayan niyad jabine inay adkaystaan oo wax kastoo yimaada dhabarka u dhigaan oo ayan ka biqin oo ayan oran waa layna eedaynaya oo oran maxaan dhahay anigu waan daalay oo maalinkan maanta dhibteeda batay cimaamada waa tuuraya cimaamadaha aad tuuraysan horta ha tuurinina leeyahay qurbajooga markaa fariintaan u diraya waxay tahay kaalinteennii ayaa meesha ka maqan tii nabadgelyada tii dhaqaalaha tii waxbarashada tii dhinac kastaba ha noqotee qodob xaggii markaan halka joogaan bisha saddexaad baa socdaa run ahaantiina waa markii koowaad intaa saddexdaa bilood aan habeenkii dawlad xabadaha aan arkay xabadaha meesha ka dhacayay waxaad moodaa dhinac waxaynu ka salsaloonaa xamar baynu ka salsaloonaa oo aad baa ugu mahadsantihiin xamar baa la yidhi waxaa la dhisay waxaa habeen daar dhan baa dam inagu waxba way laguma dumaanay madfac dhan baa soo dhacaya dul dhan baa baaba'aysa subax baad arkaysaa islaamu mafriqasito iyo meesha maanta subax baa la dhisayo waxyaabahan aad ula yaabay aan idinku mahad celinayay aan idinku ammaanaya waxa weeye wax ka soo dhaca xalal dhelay haddana berrinta waxaad arkaysaa magaaladu isla saacadaha ka bacdi magaaladu aad muddo xoogaa waa la bislaaday waa la daalay waxaan leeyahay sidaa kusii wada qurbajoogna waxaan leeyahay balaayo badan meesha ma jirtee adeer soo dhawaado qaybtiinni baa maqane mid kasta oo khabriilo ah ha la qabto dee waxaana la isugu yeero waxaa ka baxaa la yidhaahdo si loo garanayo hadday ka bixi waayaan oo joojin waayaan ha la qabto qorigaa timi qorigii de khamriili baa sitaa khamrigana iyagaa kala iibsada dee waxaan leeyahay waayeelka dee qorigeena khamraa baa la siisanaya horta qorigeena aan la soo wareego dumarro qori ma qaato waayelna qori ma qaato ma rido laakiin inankeenni baa rida oo habartuna dhashay odayguna dhalay oo mas-uul ka yahay qorigana cid kale male odaygaa leh in badanna halkan waa kaga hadalay qorigaa in laga rido inanka oo laga qabto oo odaygu qorigiisa qabsado ayaa waajiba war waxaynu nahay rixim waxaynu nahay dad wada dhashay waxaynu nahay dad isdhalay waxaynu nahay dad aan meel kala tegayn waxaynu nahay kuwii qabriga lagu wada ridayey waxaynu nahay kuwa xisaab isugu iman doona waxaynu nahay kuwa aakhire iyo adduunka labadaba xisaabtamaya
labadaba waa xisaabtamayna waxaynu isnidhi iyo waxaynu isyeellay iyo waxa aynu uurka isugu hayno iyo waxaynu isha isugu hayno iyo waxaynu aqalka hoostiisa iska leenahay intaba waa ku xisaabtamayna war waxaan idin leeyahay hala tanaasulo walba calooshiisa ilaahay baa og anigu labadaa reer uma kala faaliyo markasta dee rasaastu dhacdo hadda ciidahan soo carara war waxa hal kelmad baan idin weydiinaya war horta ninkii waxa loo geystayo haddaad samirto miyaad gunooli maya weeyati ka wax loo geystay hadduu samro gumoobi maayo wuxuu ka qaadanayaa dembi dhaaf iyo guul buu qaadanaya war wax geystayo kii wax geystay haddaad soo qabato miyaad gunooli maya weeyaan bal labadaa kelmadoodna hala isku barbardhigo taas waa taayir qaadano xaajada waxaanu qoriga inaga ale inanka marka la soo qabto ee halkaa la keeno inanka 20 oday baa ka daba yimaada waxaa loo soo xidhayna waa dhib